ninkan waxaa lagu magacaabaa Baabul Biya. waa madaxweynaha ugu cimriga dheer dunida oo dhan. da'diisu waa 92 jir, bar ka mid ah cimrigiisana waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Cameroon. waa ku dhawaad 50 sano. arrinta la yaabka leh ayaa ah in uu la daalaadhacayo xusuus la'aan iyo ogaal yari, muddo dheerna kama uusan hadlin fagaaraha sababtaasi darteed. balse maxaa dhacay markii loo dhiibay makarafoonka isaga oo ku sugan Mareykanka? warbixintan ayaan ku eegi doonaa musuqmaasuqa madaxweynahan 92 jirka ah iyo doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dalka Cameroon, dalkii qaniga ahaa ee Cameroon oo uu u bedelay mid faqiir ah. muuqaalkana sii faafi. dalka Cameroon oo ku yaala bartamaha qaaradda Afrika waxa uu ka mid yahay dalalka ugu faqiirsan dunida oo aysan inta badan dadkiisu awoodin 2 waqti oo cunto ah maalintii. dalkan waxa looga hadlaa wax ka badan 250 luqadood, taas oo muujinaysa heerka kala duwanaanshaha ee dadka ku nool waddanka Cameroon. laakiin luqadda koowaad ee dalkan waa Faransiiska oo gumaysan jiray ayaa Cameroon ay xornimadii ka qaadatay sanadkii 1960kii, kolkaas oo ninka lagu magacaabo Ahmadou loo doortay madaxweynihii ugu horreeyay ee Cameroon. aan u soo daadegno dulucda sheekadeena. marka ay taariikhdu ahayd sanadkii 1982kii, dalka Cameroon waxa madaxweyne ka noqday ninkan oo lagu magacaabo Baabul Biya oo markaasi da'diisu ay ku dhaweyd 50ka. dadka reer Cameroon waxay aaminsanaayeen in ay heleen hogaamiyihii ay naawilayeen, maadaama uu ahaa nin la soo tijaabiyey oo ra'iisul wasaare ahaa ka hor intaan loo dooran madaxweynaha, iyo nin caqligiisu uu qaangaaray. waxa uu madaxweyne ka noqday dalka kulansaday khayraad ay yar tahay in waddan isku helo. Cameroon waa dal qani ku ah saliidda iyo gaaska dabiiciga ah, macdanta cobalt iyo bauxite, diamond. waxay sidoo kale leedahay dhul kaymo ah oo cagaaran, waxaana intaasi dheeri ah webiyo iyo bad ay dhex ceegaagaan quud oo dhan. Baabul Biya markii kursiga uu ku fariistay, sidii caadada u ahayd madaxda Afrika, waxa uu bilaabay qorshihii uu ku sii joogi lahaa muddo dheer, halkii uu ka fikiri lahaa horumarka dalkan ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. 8 jeer oo ka dambeysay markaasi, doorasho uu qabtay isaga ayaa ku guuleystay Baabul Biya oo ah madaxweynaha hadda ee Cameroon. waxaana uu sidaasi xukunka ku joogay 43 sano oo cimri ah. waa in ka badan cimriga aan jiro, laga yaabee adiguna inaad ila mid tahay. waxyaalaha la yaabka leh waxaa ka mid ah madaxweynahan 92 jirka ah waxa uu mar kale isku taagay doorashada madaxweynaha isaga oo wajahaya xaalad xusuus la'aan ah. dad badan waxa ay ku eedeynayeen in uusan fagaaraha ka hadlin muddo dheer, taas oo la xiriirta xaalad caafimaad oo soo wajahday iyo xusuus la'aan. hase yeeshee waxa uu soo muuqday dhowaan isaga oo ka hadlaya shirka dalalka Afrika iyo Mareykanka, kolkaas oo markii makarafoonka loo dhiibay ay soo baxday ceebtiisa iyo inuusan ogeynba in uu joogo shir caalami ah. gudaha dalka Cameroon waxa uu ku guuleystay doorashadii dhowaan uu qabtay ee dalkan Cameroon, taas oo dhalisay carab ballaaran iyo banaanbaxyo ay ku muujinayeen dadweynaha in aysan doonayn sanado kale oo uu hor fadhiyo Baabul Biya. dalka Cameroon waxa uu ka yeelay mid ka mid ah dalalka ugu faqrisan dunida, iyada oo ay Cameroon ay ku jirto wadamada leh khayraadka ugu badan. inkasta oo qaar ka mid ah gobolada dalka Cameroon ay ka qarxeen kacdoon dhalinyaro, haddana ma noqon mid guuleystay. waana su'aal hortaagan dadweynaha goorta ay iska wareejin doonaan Baabul Biya. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare.